Bismillahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Samir Xasan Xuseen, degan magaalada Marburg. Waxaan jeclaystay inaan kilib yar maanta ummadda Soomaaliyeed ee degan dalka Jarmalka la wadaago. Kilibkaas ku saabsan arrimaha qaxootiga ama dadyowga negatifka la siiyay iyo kiisaskooda wixii kasoo cusboonaaday. Saad la socotiinba qolada immigrationka ama qolada maxkamadda waayahan dambe waxay bilaabeen ama badatay in Soomaalida la siiyo negative. Marka negative-kaas oo diidmo ah, negative-ka waxaa loo jeedaa diidmadaas oo ku badatay Soomaalida, taasoo igu andacoonaya mar walba in wadankii Soomaaliya uu sidii hore iska soo dhaamay ama kasoo hagaagay xaaladihiisa. Sidoo doonaba ha ahaatee, maxaa laga doonayaa marka dadyowga noocaas kale ama kiisaska noocaas kale la kulma negative-ka la siiyo? Waxyaabaha laga rabo inay sameeyaan maxay tahay? Marka qofka negative la siiyo, waa negative-ka koowaad waxaa siinaya qolada la yiraahdo Bundesamtiga ama immigrationka. Negative-ka labaadna waxaa bixiya qofka appeal buu ka qaadanaya, maxkamad buu tagaya, maxkamadii lawyerkiisa wuxuu qabanaya wax la yiraahdo appeal-kaas oo maxkamadda ama Verwaltungsgericht wax la yiraahdo u gudbinayo. Maxkamadaas mar labaad uu qofka wareysi kooban la yeelanayso. Wareysigaas kooban ee la yeelatana waxaa suuragal ah hadba qofka dacwadiisa qaabka u dhigan tahay qusaysaa. Marka ugu dambeysna waxaa suuragal noqon karta in qofkaas mar labaad haddana negative loogu celiyo. Okay, qofkii marka positive helo waa falilah alxamdu, waa sidii la rabay. Marka qofka negative la siiyay oo mar labaad negative la siiyay, jaanis nooca ayuu leeyahay. Jaanisyo badan uu leeyahay oo kala way jiraan, laakiin intaan jaanisas kale aan loo gudbinba waxaa hortaagan ama taagan qoladan la yiraahdo Auslander Biholdaha ama qolada sharciyada qaabilsan iyo dadka inay sharciyada u dheereeyaan ayaa waxay sameynayaan in qofka ay culays badan saaraan ee dhahaan orod keen warqado passport keen, haddii kale waxaad weynaysaa shaqadaada, haddii kale waxaad weynaysaa Ausbildungkaaga, haddii kale waxaad weynaysaa lacagaha ceerta aan ku siinana kaa jaraneynaa. Adiga qofka waxaa la saaraya culaysaad fara badan. Marka qofka markii culaysaad badan la saaro, culaysaadkaas waxay sababaysaa qofka in asagoon tala badan ka haysanin ama aan arrinkaas loo diray ama wax loo dirayo aan aad uga fikirin in uu uu go-aan degdeg intuu qaato uu keeno waraaqado markaas asaga nafsadiisa halis ku ah ama dhibaateyn karta sababi kartaba xataa in wadankii uu ka yimid markaas dib loogu celiyo. Marka qofka markii culaysaadkaas noocaas ee la soo gudboonaadaan, waxaa habboon in uu talooyin badan weydiiyo dadka arrimahaas yaqaana ama ku takhasusay, haddii ahaan lahayd qolooyinka magaalada markaas uu joogo, haddii ahaan lahayd diyakooniyada, haddii ahaan lahayd lawyerkiisa, haddii ahaan lahayd guddoomiyaha jaaliyadaha ama jaaliyadaha meesha ka jira ama dadka caawiya. Intaas inuu la kaashado uu talooyin weydiiyo, uu yiraahdo maxaa ila habboon oon qabtaa, tallaabada aan qaadi karaa maxay tahay, inuu wax badan ogaado si dhibaatooyinkaas u imaanayo uga badbaado. Maxaa yeelay qoladan Auslander Biholdaha la yiraahdo waxay isku dayayaan had iyo gooraab inay culaysaad badan ku saaraan si markaas aad warqadaha ama haddii passport noqon lahayd, haddii wax kale noqon lahayd, lagaa doonayo inaad keentid. Markii aad haddii aad diididna ku daran, haddii aad ogolaatidna ku daran. Maxaa yeelay haddii aad keentid waxa waxaa suuragal ah in waraaqadaas aad keentay dib lagugu celiyaba, haddii passport ahaan, haddii wax kale ahaan lahayd, wax u dhigma. Marka haddii aad diidid oo tiraahdo oo diidmo qayaxan aad usoo istaagto oo tirahdid aniga ma keenayo warqadahaas oo suuragal ma inaan keeno, haddaad tirahdidna maxaa ku imaan kara? Waxaa ku imaan kara cawaaqib ah in qofka tashiilaadkii u heli jirana in laga jarto. Marka maxaa laga rabaa qofka inuu wax diidana lama rabo, inuu wax yeelana lama rabo. Inuu qofka meermeeriyo, marba luqo ka bixi karo ka baxo, marba siduu yeeli karo inuu sameeyo habboon. Marka Soomaalideena maxay sameeyaan badanaa ama dhalinyarada diidmada la siiyo, haddii ama ha ahaato aqoon yari ama ha ahaato experience aysan ka haysan arrimahaas. Qofkii asagoon arrinkaas aan wax badan ka ogeyn ayaa la leeyahay orod keen warqad hebel ama orod keen passport hebel
wuu baxayaa meeshii loo diro aadaya asagoo maxaa la dhahaye warqadihii ama wixii markaa loo diray la ordayo keenayaa. taasa waxay sababi kartaa marka qofkaas oo sidii rabeen bay maxaa la in qofkii dib loogu celiyo. marka intaan maxaa la dhahaye wixii aad sameyn inaad marka hore maxaa la aad ka fiirsi badan sameysid ayaa wanaagsan oo aad la tashatid markaa maxaa la dhahaye dadka caqliga iyo cilmiga u saaxiibka ah oo arrimahaas maxaa la dhahaye markaas aad ugu dhundaloolo. arrimahaas maxaa la dhahaye waa arrimo soo batay oo Soomaalida aad ugu soo farabatay in Soomaali badan maxaa la dhahaye ay waraaqada ay ka dhibaateen kara inay keenaan marka maxaa la ama asoon experience badan ba ka haysanin inuu maxaa la dhahaye baxo maxaa la dhahaye safaaradii qabto oo maxaa la dhahaye soo saaro maxaa la dhahaye passport soo sameysto asagoo ogeenba ama ku dhahayaba maxaa la dhahaye passportka horta muxuu faa'iido leeyahay. marka hore la rabaa qofka maxaa la inuu ogaado passportka maxaa la wuxuu u keeni karo faa'iidadu leeyahay faa'iido isagu lahayn maxaa ii keeni karo maxaa maxaa la dhahaye u doontay waxaas oo horta marka qofka is weydiiyo kadib marka maxaa la dhahaye talooyin badan ama talo bixin badan haysto maxaa la dhahaye meeshaas ama waxaas uu doonayo asaga inuu sameysto. laakiin haddaad maxaa la dhahaye aad iska ordo tiraahdo maxaa la dhahaye waxaan keenayaa maxaa la warqad hebel ama passport hebel ama kan hebel maxaa la ama midda kaleeto arrimahaas maxaa la dhahaye idan in aad looga fiirsado waxay tahay maxaa la dhahaye looyaro badan xataa waxaa jira qofka asoo haddana lawyer haddana cilmigii lawyernimada leh ama maxaa la dhahaye in lagu ixtiraamana mudan haddana waxaad malaysaa maxaa la dhahaye mararka qaar arrimaha maxaa la dhahaye markaas adiga kugu tacalluqo inuusan maxaa la dhahaye si fiican maxaa la usan ugu bisleen ama usan wax badan usan ugu ogeyn marka maxaa la dhahaye uu lawyer runtiisa ku dhawaateen kara maxaa la dhahaye wax badan baa usoo noolaa oo dadyo badan maxaa la dhahaye aan ka caawiyo arrimahaas in lawyeradoodiiba maxaa la dhahaye ay gud u qodayaan maxaa la qofka inuu ku dhacay doonayaan marka maxaa la dhahaye taasna lawyerada ama waxay noqon kartaa maxaa la dhahaye lawyer asaga marka maxaa la dhahaye u helinaya dowladda dhankeeda u janjeer noqon karaa. waxay kaloo noqon kartaa maxaa la dhahaye lawyer aanan ogeyn dhibaatada maxaa la dhahaye qofkan u imaan karta duu xas la imaado marka maxaa la dhahaye arrimahaas lawyero badan oo kala sheekaystay marka ugu dambeysana maxaa la dhahaye madaxda jaaliyadda dhan waa iska wareysanay arrimahaas maxaa la dhahaye Soomaalida kusoo kordhay sidoo kale waxaan aad iskaga wareysanay ama maxaa la dhahaye talaada la soo dhaafay aan aad uga wada hadalnay madaxda safaaradda iyo dhammaan maxaa la dhahaye ayakan inay talooyin badan ka siiyaan Soomaalida maxaa la dhahaye waan ka codsanay. waxaan codsanaynaa marka maxaa la dhahaye ama Soomaalida aan ka codsanaynaa naftarkooda in marka hore maxaa la dhahaye ay ayaka tala bixin badan raadsadaan. waxa la yiraahdo maxaa la dhahaye waxaa jirta baqaato ishtaale ama meelo fara badan oo maxaa la dhahaye talooyin dadka siiya oo maxaa la dhahaye oo waxba lacag aan laga qaadayno maxaa la dhahaye ama cadaan ha ahaato ama dad Soomaaliyeed kugu luqad ha ahaato waxaa jirta meelo badan oo maxaa talooyin aad ka raadsan kartid oo talooyin mustaqbalkaaga ku anfacaya noqon karta. marka arrimahaas inaad ku dadaashiin ayaan ka codsanayaa waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan iyo caafimaad. waxaan rajeynayaa ilaahay inuu koronahan iyo xaaladahan lagu guda jiro ee hadda soo kordhay Jarmalka aad ugu soo ziyaaday inuu ilaahay naga koriyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.